wafdi ballaaran oo hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceerigaabo waxaana wafdigan duleedka magaalada Ceerigaabo ee kantaroolka bari kaga hortagay isla markaana halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland oo hore ugu sugnaa Ceerigaabo mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmaba madax dhaqameed mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha xisbigaasi ee gobolka Sanaag iyo waliba dadweyne kale oo tiro badan waxaana intaasi kadib wafdigan loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceerigaabo waxaana ugu dambeyntii wafdigan ay warbaahinta kala hadleen xafiiska xisbiga kulmiye gobolka Sanaag halkaas oo ugu horeyn ka hadleen barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faarax iyo qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag aad bay maanta farxad inoogu tahay inuu halkan inoogu yimaado gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweyne adiga iyo waftiga aad hogaaminaysaba guud ahaan gobolka Sanaag ku soo dhawaada wafti aad u ballaaran oo heer qaran ah oo xisbiga kulmiye muxaafidka ka socda oo musharax hogaaminayo anoo Sultaan Cali Yuusuf Cabdi Barda Cas oo salaadiinta degmada Ceerigaabo waxaan ku soo dhaweynayaa musharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi degmada Ceerigaabo gawarinay gubi waa ka soo gudutay giriya galowga hajabin maanta waa abaal gudaynaa waxaan ku abaal gudaynaa xisbigii kulmiye ee laamiga noo sameeyay waa ka abaal gudaynaa xisbigana codkii waa siinayna xisbiga waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha ganacsiga Maxamuud Warsame Jaamac wasiirka biyaha Xuseen Cabdi Boos wasiirka kalluumaysiga Cali Jaamac Buureed iyo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi inagu waxaynu ahayn meel baynu ahayn meeshaasina kulmiye ahay soo maaha soo reersa kulmiye maaha waxaan barsanaa waayahay sidii kaarka aan ugu wacyigelin lahayn in kaarka loo qaato oo naftii registrationka sameeyay ama isdiiwaan geliyay ay kaarkoodii qaataan inta hadda inoo diiwaan gashay waxaan rabnaa inaan cidna kaar ka noqon oo kaararkoo dhammaynu gacmaheena ku qaadanno maanta olole ma wadno waxaanu wadnaa guubaabo in kaarkii codbixiyaasha la qaato kaarkii codbixinta doorashada madaxtooyada in la qaato kaarkaasi saamayn buu ku leeyahay noloshiina gobol waliba tirakoobkiisa kaarka qaatay ayaa final liiska la soo saaraya ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay isla markaana halkaasi uga mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi magaalada Ceerigaabo maanta wacdaraha ay gujeen iyo isu soo baxay tahay iyo kalgacalka iyo niyadda san iyo shucuurta aan ugu soo dhaweyseen anigoo ku hadlaya magaca waftiga iyo ka xisbigaba aad baan uga mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr Yuusuf Cabdi Xasan Cadde telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceerigaabo.